هذه مركز جبهة هوسنا أحمد الدولة الجديدة وهستو جبهة دحنا الشباب هستان جد waxaan u maleynayaa shabaab way ka joogan door laakiin magaalada kama joogan magaalooyinka waxa ku nool dadka shacabka ah oo Soomaaliyeed oo qaybihiisa kala duwanaa leh iyo ciidamada dawladda Soomaaliya waxa marka laga maarmaan inay reegada isku diyaariyaan horumarinta iyo barwaaqeynta iyo geedi socodka iyo dawladnimada iyo sharaf soo celinta iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed inay lambar 1 ka noqdaan arrintaas ay ka ah ay diyaar u noqdaan waxaan idin ballan qaadayaa arrintaas ayada haddii aan idin saaka dhigihiina idin kugu shubayaa inay dhab tahay lagana shaqeynayo haddii aan idin in gado ay ka dhacdo lagu sameeyo maamul dawladda Soomaaliya ay dhisto oo mas'uul ka tahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo reer Jubbaland ahna wixii uga dhex maqnaa oo ka dhaxlo cadaalad u dhismato ummadda Soomaaliyeedna ka shaqeeya danahooda isla markaas ayada aan dawlad gaar u taag ah ama dawladda shisheeye danahooda ka shaqeynaya midna aan noqonin ay noqdaan dawlad ka shaqeynayso maamulkaas uu noqdo maamul ka shaqeynayo danaha ummadda Soomaaliyeed kuna xiran xamal aan ku xirnayn caasimada kale oo dalka ay leeyihiin markii laga soo tago darisnimada iyo wada shaqeynta iyo dii wax isku darka dadka bilaadanka ah darisnimada Ilaahay baa dooray qofna ma doorto anaka Ethiopia inaan daris ahaano Ilaahay soo Djibouti Ilaahay baa dooray anaku ma dooran waxa markii kala deeqo in darisnimo qofka kale wixii markaas ayada kala jiro oo ka qoseeya inuu kala shaqeeyo laakiin dalal baan kala leenahay Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya Soomaaliya waxaduudan caasimadda Soomaaliya ay tahay Muqdisho taasna laakiin dad badan oo Soomaaliyeed bay iskaga qaldantay ama iskaga darmatay caasimadda inay Addis Ababa tahay inay Nairobi tahay inay Muqdisho tahay Ilaahay warkiis waxaan leeyahay marka maamulka dhismi doono wuxuu noqon doonaa maamul biidillaahi tacaala og caasimadiisa inay Muqdisho tahay og madaxweynihiisa inuu madaxweyne Axmed uu yahay Xasan Sheekh Maxamuud og inay dawladda federaal tahay og inuu waxa uu ka shaqeynayo masiirada uu gaarayo aysan ku jirin wax dalka ka baxsan oo dawladda heshiis lala soo galo iyo xaduudo intaba ay dawladda dhexe ay leedahay mas'uuliyadeeda kana shaqeeyo danaha ummadda Soomaaliyeed kana shaqeeyo wax horumar ka wax kasta oo horumar keeni karo oo ummadda Soomaaliyeed danaheeda iyo dawladnimadeedii iyo calankii sharafta badnaa ee gabdhaha gacanta noogu hayaan iyo ragba hadda dib u soo nooleeyo wuxuu ahaan jiray oo Soomaaliya ka dhaxaan jiray walow hadda Ilaahay fadligiisa ognahay in badan oo kamid ah sanadba sanadka ka dambeeyay dawladnimada Soomaaliya inay meel wanaagsan si istaagayso laakiin lugooyo iyo doondaabiyo iyo khilaaf iyo hagardaamiyo ay shisheeye la kuleeyihiin in badan oo kamid ah ay jiraan laakiin laga gudbi doono biidillaahi tacaala arintaas marka inay reegado gaar ahaan reer Jubbaland guud ahaan reer Jubbaland gaar ahaan reegado inay isku diyaariyaan inay martigeliyaan soo dhaweeyaan guryaha uga baxaan gogasho uga kacaan baabuurkooda ku caawiyaan dhismaha iyo horumarka Jubbaland Ilaahay idinkiisa loo dhanyahay oo ummadda Soomaaliyeed ay wada leedahay barnaamijkaas marka insha Allah Rahmaan waana dhici doonaa Ilaahay idinkiisa waana iman doonaa dadka loogu iman doono oo gogashooda lagu fariisan doono waxay noqon doonaan reegado arrintaas waxaan rajeynayaa marka reegado insha Allah tacaala oo loo gobolka gado uu kamid yahay gobolada ummadda Soomaaliyeed in badan kamid ah ay wada degan tahay حيرلي وحقوق وانا لما هراني حيرلي وحقوق الو ما صرت ادري قبلها اورك هاون كانوا مسيحيين waxaa muhiim ah qofku karaankiisa iyo inteerto uu leeyahay oo qofku bilaadanka waa daciif asal ahaan in si daacadnimo ah oo ummadiisa ugu shaqeeyo dawladnimadiisa uga shaqeeyo dalkiisa oo la jecel u leeyahay intaas waxay ku salaysnayd in badan oo kamid ah heestii awanka Soomaaliyeed oo alifay ama garaadka awanka Soomaaliyeed oo alifay gabadhan hadda inoo qaadeen taas asal insha Allah Rahmaan waxa la ummadda Soomaaliyeed inay ka wada shaqeysan dhamaanna askari iyo shacabba
oday iyo culummo gabar iyo hooyo waxa waaye oo lagu gaari karaa midnimo in ummadda Soomaaliyeed loo wada shaqeeyo intaas waxaan rabaa insha Allah barnaamijkaas